dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota ayaa sanadkan waxaa ka qalin jabiyay arday badan oo Soomaali ah. Ardayda sanadkan qalin jabisay qaarkood ayaa deeqa waxbarasho aad u sarreeya waxa ay ka heleen qaar ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee dalkan Mareykanka, kuwaasi oo qoys kasta hibo uu ku taamo inay ubadkoodu dhigtaan. Ardayda deeqaha waxbarashada sanadkan helay waxaa ka mid ah Muniire Cabdisalaan Calimire oo ka qalin jabisay dugsiga sare ee Rochester STEM Academy, iyadoo sidoo kalena intii ay ku jirtay dugsiga sare dhamaysay 2 sano oo kulliyada oo shahaadada associate ka qaadatay. We had 2 valedictorians, and Lou and Munira graduated from college before they got their diploma. Asaate Munira waxay deeqa waxbarasho ka heshay jaamacadaha ugu sarreeya Mareykanka oo ay ka mid yihiin Harvard iyo Yale. Somali TV ayaana goobjoog ka ahaa qalin jabinta Munira, waxaanan kala sheekaysanay farxadeeda jaamacadda ay go'aansatay inay aado iyo mustaqbalka waxay ku taamayso. waxa liga aqbalay 8 school, waxa liga aqbalay Harvard, Yale, Stanford, waxa liga aqbalay Cornell, Duke, University of Minnesota meeshaan ah, waxa liga aqbalay Emory, school badan liga aqbalay, and school yoonka dhan waxay siiyeen full scholarship. Also waxa helay scholarship Bill Gates scholarship kiisa, iyo waxa helay scholarship kala Jack and Cook. Labadaas waxay yihiin scholarship ugu sareysa Mareykanka. marka kuwa faraha badan keed ka dooratay maxaad ku dooratay? waxa doortay Stanford waxa ku doortay lacagtii iyo resourceski iyo opportunities u heestaan ilmihii oo Afrikaanka iyo ilmaha madowga iyo opportunities ka helayo hadda marka Soomaaliya raban u laabto oo ka shaqeeyo oo Soomaaliya hadana dhiso. dabcan u laabto adiga kuma qosaysan u maleeyna because adigu halkan baad ku dhalatay. laakiin waxa ka Afrika ligu soo koray aniga meesha ku dhashay laakiin waxaan dareemayaa inuu meeshii gurigay ah in Soomaaliya tahay. maxaad doonaysaa inaad barato? waxaan rabaa barto political science-ki, waxaan rabaa Soomaaliya u laabto oo haweenihii iyo ilmihii rights-kooda u shaqeeyo oo education iyo women's health naagaha dumarkii health-kooda inaan ku focus ka saaraha. dabcan qof dhalinyaraha tahay oo wadanka Mareykanka kortay markaad khudbooyinaysana dabcan qofkii khudbadaada dhageystay waxa uu dareemi karay inaad qof arrimaha siyaasadda wax ka yaqaan tahay. wadanka Mareykankana xaaladiisa aad ula socda. waxyaabaha aad kala hadashay dadweynaha halkan isugu yimid ardadii maxaa ka mid ah? waxaan la hadlay inaa maantaan kadib inay soo xasuustaan waxa ay ka sameyn karaan adduunkan bedeli karto, Mareykanka bedeli karto, Soomaaliya bedeli karto. haday rabaan ina arkaan Soomaaliya fiican oo Soomaaliya dhisan oo Soomaaliya meesha anaka ku soo kornay waalidkay ka soo koreen inuu laabato anaka ina wax sameeyno anaka istaagno oo Soomaaliya u laabno lacag u soo keenno hay aqligeena soo keenno. laakiin Mareykanka xataa maalin kasta waa naxsanahay waxaan arkaa president-keena oo ninka madaxweynada nooca wuxuu muslimku waaya muslimku wax kasto waca wakanaha because anaka muslim nahay in wax rabana in wadanka naga saaro waxa rabaa in adduunkan iyo countrygan wadankan Soomaaliya meel fiican ka soo dhiso wax fiican ka soo saaro. ugu dambeyntii maxaad ku oran lahayd dhalinyarada adiga kula midka ah jaamacadaha ku jira kuwa rajo ka qaba heerka aad gaartay oo kale sidee ku gaari karaan maxaad talo oo si lahayd? Hadarsan one of the teachers just said wax kasta oo laga qaadan karo lacagtada laga qaadan karo cidaada ka qaadan karaan ba wax laga qaadan karo waa education kaaga degree baa helaysa diploma baa helaysa in education kaas marka lagu sii adduunka dhan ku bedeli karta in qof muslim nacab qof Soomaali nacab dadka madowga nacab wax ma ka qaadan karaan education kaas ma ka qaadan karaan. so waxa rabaa anaka dhan as we go forward as we go on to our future and go on to college and become doctors, lawyers, presidents, senators, politicians and engineers and so much more. waxa rabaan hal wax xasuusatiin education kaaga anaka kaliya maahan. It's not only for our success, it's for the success for people Minnesota joogaan, Soomaalida Minnesota joogaan, oo Mareykanka joogaan, Australia iyo Sweden joogaan, but also Soomaaliyoonkii oo gurigeena joogaan oo wadankeena joogaan inaan ka fakarno waaye because Ilaahay wuuna barkeeyay anaka dhan wuuna barkeeyay hadeer. Muniira waxaa farxadda qalin jabinteedu aad u maashaysay waalidkeeda oo waqti badan geliyay sidii gabadhoodu u guulaysan lahayd. Aabe Cabdisalaan Calimire Sahal ma qiyaasi karo waxa uu ku macneeyo farxadda iyo heerka ay gaadhay gabadhiisu, wuxuuna Muniira ku kabay duco qalbiga ka soo goday. farxadeyda haddaanan macnaha aanan hadalka lumin baan nasiib leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. mana ahan farxaddii iigu horreysay ilaa iyo markii dugsiga hoose dhexe dhiganaysay ilaa high schoolkeedii waxay ahayd qof aad iiga farxiya buundadeeda weligeed ima soo sheegin buunda aan ahayn A+
ilaa yaraanteedii waxay ku dhalatay Rochester waxaasay ku soo kortay dalka Kenya ayay ku soo qaadatay dugsiga hoose dhexe marka dadaalka ay gaari jirtay ayaan ku rajo weynaa inay meeqaankan meel ka weyn gaari doonto waxa weeye cunugu markuu waalidkiisa maqlo waxa ay jecel yihiin uu raaco dadnimadiisana ku dadaal meel buu gaaraa marka waxa weeye annaguna waa dadaalnay ayaduna waa ay dadaashay dadnimadeeda ay ku soo gaartay aad bayna nooga farxis ilaahayna waxaan ugu ducaynaynaa inuu maartay adduunkeedii aakhiradeeda u hagaajiyo waxbarashadeedii iyo mustaqbalkeennii annaga iyo dalkeennii dadkeennii mid wax tartana ilaahay inuu ka dhigo hooyo caashe cabdi xasan oo gabadheeda muniira dhinaca taagan ayaa farxaddeeda ka sokow waxa ay sheegtay in waxbarashadu ay tahay furaha nolosha gabadhoodana ay gacan weyn ku siiyeen wax kasta oo iga gun gaari karto waxbarashadeeda sidoo kalena waxa ay xustay in muniira ay jeceshahay inay Soomaaliya tagto oo dadkeedana wax u qabato markay waxbarashadeeda soo dhamaysato iyaduna ay intaa garabkeeda taagnaan doonto walaadu waxay u baahan tahay in la gacan qabto muniiro wax kasta waxaan ugu sheegi jiray anoo hooyadaay oo ku dhalay ayaa jaamacad ka baxay waxaan ka filahayaa inaad adiguna PhD qaadatay meesha anigu aan ka qaatay bachelor taas was maaragtay motivationkeeda aan siin jiray always markastana waxaan u sheegi jiray haddii uu madaxweynaha Mareykanku uu waxa sameeyay adigana waa sameyn kartaa 9 bilood buu ku dhashay adna 9 bilood baa ku dhashay wax adduunka kuga adag ma jiro hadaa ilaahay baridid oo ilaahay ku toosan tahay wax kasta waa tray mar waa ku dhici karaa imtixaanka mar labaad waa ku dhici karaa laakiin mar saddexaadku waa ku baasi karaa motivationka ay muniira haysa taas weeye waxay kaloo aad u jeceshahay inay wadankii Soomaaliya ay wax ka qabato waxay aad u jeceshahay inay UN kala shaqeyso hadda markay high school ka dhiganaysay waxay la shaqeynaysay UN for women intaas oo dhan waxay u galeysay si ay ula socoto waxa adduunka ka socda waxa macnaha ay ka bedeli karto siyaasadda Mareykanka ha noqoto ama siyaasaddii Soomaaliya ha noqoto waxay ku rajo weyn tahay haday ay dhamayso jaamacadda inay Soomaaliya ku noqoto oo bahalka aniguna waa ku garab istaaganahay waa u sheegay wadankii inuu u baahan yahay generationka ayada la mid ah inay wadankii wax ka qabtaan hooyo caasho ayaa sidoo kale ugu baaqday dhammaanba dhalinyarada Soomaaliyeed inay waxbarashada ku dadaalaan oo ay gacanna diinta ku qabsadaan gacanta kalena aqoonta maadiga ku doontaan khaasatan waxay fariin u dirtay wiilasha Soomaaliyeed oo ay sheegtay inaysan jirin cudurdaar ay wax ku baran waayaan maadaama iyadoo hooyo ah ay jaamacad ka baxday oo ay wax baratay wiilasha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa in ay waxbarashada ku dadaalaan hadda wixii graduate gareynayaba gabdha u badan marka anagoo hooyooyina anoo 5 cunug dhalay baan jaamacad dhiganay marka adigoo wiil dhalinyara oo hooyo bahalkan la yiraahdo ku haysta oo aabba haysta oo ilmo ku sugaynin waa sameyn ka dhaa gabdhahana sidoo kale guusha waxbarashada ubadka qurbaha ku barbaaraya ayaa sida la sheego inta badan waxay ku xiran tahay hadba intay leeg tahay waqtigay waalidiintu geliyaan goobaha ubadkoodu wax ku bartaan iyo siday uga warqabaan heerka waxbarasho ilmahooda waxaana tusaale noogu filan dadaalka qoyska Cabdisalaan Cali Mire iyo qoysaska kale la midka ahi ay geliyaan ubadkooda si ay u guuleystaan maxamuud mascade Somali TV Minnesota